masaajidku nebigu soo galay sal alla alay wasalam xilli madiinat almunawara ay tahay dhaxan markaabuu nebigu ka soo baxay guriga caaisha deedna wuxuu arkay ninkii la odhan jiray rabiicata binu kacb alaslami waa saxaabi jaliila waa ahlu sufu ku jira ahlu sufu waxa weeyaan waa rag masjidkii nebi maxamed gadaashiisa dambey degan yihiin magaalada madiina qareen iyo qaraabo kuma lah xataa aqal ay galaan ma lah meel ay wax ka cunaan ma laha nebigeenna calayhi salaatu wasalaam hadiyadda loo keenu nebigu wax ka siin jiray hadday sadaqad lala baxayaan wuxuu jiray iyo ka siiya sadaqadaas fadaalo iyo rabiica iyo abaa hureyre iyo ahlu sufa way badnaayeen 70 waa lagu sheegaa 90 bay culimmadu ku sheegaan qaar 200 bay ku sheegaan qaar 400 bay ku sheegaan marna tiradoodu way biiraysay oo 70 bay masjidka nebiga ku dhex fadhinayeen marna nebiga sallallahu alayhi wasallam aryaaf almadiina magaalada madiina reeraha iyo tuulooyinka u dhow ayuu nebigu u diri jiray oran jiray dadka quraanka soo bara reerahaasi way islaamayaan oo diintii bay jeclaadeen ordoo dhex fadhiiso faatixada soo bara reerahaasi weli ma islaamin islaamnimada gaarsiiya oo nebigu dacwadda u diri jiray iyaka raggani marka ahlu sufay haayeen magaalada madiina qareen iyo qaraabo kumay lahayn ninkaa la odhan jiray rabiicata binu kacb alaslami oo nebi maxamed khaadimkiisa ahaa habeenkii markuu nebigu u soo kaco salaataleylka ayuu nebiga biyaha u keeni jiray biyaha uu ku weysaysanayo nebiga u soo qaadi jiray cadaygu nebiga u soo qaadi jiray markaa buu nebigu arkay rabiica oo dhaxmoonayo sidaa leh dhaxan calooshana cunta uguma jirto difaaca jirku uu yaraanaya markuu qofku maalmo dhan 3 maalmood cunto markuu uu waayo difaaca jirkiisa uu yaraanaya dhar dhaxanta ka celiyana may qabine gooyar baa haysanayeen dhinaca saas kugu qaban jireen sidaas uu qarqarayay markaa buu nebigu ku yidhi rabiica labbayk ya rasuul allah waxaad doonta caawa ii sheegay buu yidhi bal waxaad doonta sheego caawa war hadalka ayaa leh ma ahin wasiir ma ahin madaxweyne ma ahin maalqabeen intuu ku ballan qaado ballanta kaaga baxaya maaha wasiir ballan intuu qaado ballanka kaaga baxaya maaha waa nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam kule rabiicow waxaad caawa jeceshahay ii sheega buu ka yidhi salli waxaad doonta sheega caawa markaa uu saxaabigii yaabo uu fikray as'aluka muraafaqataka fi ljanna buu ku yidhi inaan jannada rafiiq kula noqdo ilaahay weydii buli bas shaksigan ku leh waxaad doonta sheego waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa sayidu waladi aadam calayhi salaam waxa ilaahay uu siiye duco la aqbalo mustajaabo ah hadduu nebigu yidhaahdo calayhi salatu wasalaam ilaahu buurtaa dahab ka dhig buurtaasi dahab bay noqonaysaa hadduu nebigu cantoobe ciida soo qaadu yidhahdo ilaahu ciidda dahab iiga dhig ilaahay dahab buu ka dhigi karaa laanna nebi maxamed ducadiisu waa mustajaabo weeyaan waa imaamu lacdam weeyaan khalqiga ilaahay abuuray oo dheebaka qiyaamo imanaya waa kay shafaacadiisa ay hoos iman doonaana ducadiisa loo aqbali doono kaabaa kula rabiica waxaad doonta caawa ii sheego markaa buu rabiica yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna aqal uu u baahan yahay ma xasuusan reer uu u baahan yahay ma xasuusan dhar uu u baahan yahay ma xasuusan cuntuu u baahan yahay ma xasuusan nolol fiican uu ku noolaaduu doonaya wixii oo dhan uu iloobay waayo fursaddan buu gartay inayna ku soo noqonayn hadday maanta dhaafto ooma soo noqoto fursa saciida fursa tayiba tira carabtu fursa laa tudayac hadii lagaa idhahda maanta madaxweynaha waddankana maanta ku qaabilaya kaalay maxaad diyaarsan lahayd bal sheeg shayga adiga agtaada kuugu qiimo badan yaad u sheeganaysaa sooma boos baad u baahan tahay magaalada santarkeega waliba maanta kula kulmay adaa ii yeedhee madaxweyne booskaasaan u baahnay haysiiya saxaabigan radia allaahu canhu shaksigan la hadlaya qadarkiisuu garanayaa makaanadiisuu garanayaa waxa saxaabigan u kala cad welibana noloshan adduunyada iyo nolosha aakhira farqiga u dhexeeya ayuu garanayaa jannada adduunyada iyo jannada aakhira farqiga u dhexeeya buu garanayaa deedna markaasuu yihi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale ma rabi aniguye inaan adiga jannada kugu dhex arko oo rafiiq kula noqdo ilaahay intaa ii weydii markaa buu nebigu ku yidhi aw gayra dalika
tu aan taa ahayn oo kalena sheega buu nebigu ka yidhi taa horta heshay tu kale ku darsa weeyaan wagayra dalika taa tu aan ahayna huwa daaka buu yidhi muraad kale anigu ma lihi muraadkaygu waaba intaasun buu yidhi bas daki buu ahaa saxaabigaasi adkiyaa inagoo dad maanta iska caqligooga foraro baa lagu odhan doonaa ninkan waa nin caaqil oo waa nin khabiira weeya oo siyaasiya oo siyaasi xeel dheer oo aragti dheer oo kontonka sanee soo socda isbedelka geeska afriku ka faalloodaa salaad fajarka ma tukada mayma tukada baa lagu odhan muxuu ku yahay markaa khabiir nolosha dambe ee runta ma ku xisaabtama may maxuu ku yahay khabiir markaa madarasad xifd alqur'aana intuu dhisay 200 oo arday intuu ku soo xereystay 20 macallin intuu u dhiibay ma yidhi ardayda xufaad alqur'aan iyo culamo iga soo saara beena ilaa qiyaamaha ajroogu aniga hay socdee kaasaa khabiir oo xeel dheer oo khabiir xeel dheera muxuu ka faalloo geeska afrika ka galay isaga adkiyaa bay saxaabatu maxamed ay ahaayeen adkiyaa dad caqli badan oo caqligoogu soo jeeda bay ahaayeen adkiyaa markaa buu nabigu ku yidhi aw gayra dalika taatu aan ahayn oo kale may buu tu kale ma qabo baanu taun ma qabo bas taasaan leehay muraadkaygu waa intaasu inaan jannada kugu arka bas uu rafiiq la noqdo faacinnii calaa nafsika bikahrati sujuud baa nabigu yiri sal alla alay wasalam وهاجا سجود فرها بدل أديكون يقول صعاوي سجود هذي بدي سجوده نبي قال جنة بشارية هكون دق منه أو عبادتي طاعة قعمها كلا بنني سجود أديكون صوبة النبي كويري وركي جنة الله بشارية هدي النبي محمد وليه هاي سجود صوبة صو إنك أنا مرك إنك أنا حال كان محاضر ملاين سامرك سوينا الأويل ما سوينا الله كعبس قصيب بدينا ما haweenkana kolley wayna maqlayaan iyakana qisad baan ugu daraya haweeney xabashiyada u madoobeyn oo waxay lahayd xanuunkan la yidhahdo suuxdin waa taqaanaan waa qalal waa xanuunka qofku u dhaco ee miyirkiisuna uu daboolmu tago miyirkiisu haweeneydaasaa nabigeena u timid sal alla alay wasalam yaa rasuul allah inii usrac jidadka ayaa ku dhacaa bay tiri jidadka maraduna markaas iga beelahantaa ilaahay ii weydii bay ku tiri caafimaad ilaahay caafimaad ii weydii ma ahayn xanuunku madax wareer yar xumad yar waa suuxdin miyirka dhan baa qofka daboolmayuu tegaya maankiisii baa bedelmayba rugmanayaba markaa buu nabigu sidaa eego wuxuu ku yidhi haddaad doonto khiyaar buu nabigu siiyey khiyaar cajiiba wuxuu yidhi haddaad u adkaysato ood sabirtid jannaad heli haddaad doonto inaan ilaahay kuu baryo caafimaadku siiyana hadda anu waa kuu ducayn markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu sidaa ku yidhi ayay tiri yaa rasuul allah bal waan isku noqonay i yarkaadii way soo noqotay markaa bay tiri yaa rasuul allah xanuunka iska daa bay tiri xanuunka halkiisa hay joogo iska dhaaf isaga xanuunka laakiin midun aniga iiga ducee meeshaan doono han iskaga dhacee yaanan maradu iga baylahmin oo cawradeeda la arkin bay ku tiri haweenkoogi iyo raggoogi soo isku aragti maaha innaka haweenkeeni iyo raggeenu isku aragti maaha maanta waa kala duwannahay لأن أمتنا مال كلية بيها كودا عبين مشرب كلية بيها كودا عبين معلم كلية ودا تربية دي حنون كيسكد دابا كتر ماشي ساجوغو هسكد عدعو هذا جنبه كويلا يصدق كلها في السقع لكن ماشي هدون عن اسكا قدعي يعني عورضي إذا لا أرك النبي الله مرضي يقبل لحمن يدو مير كيغو ضبال صومي waliba qofkaasi hadduu waa markaan salaadba qofka lagu lahayn baa la yidhi marka uu soo kaco unbaa qofkaasi inuu tukado shareecaddu ay dhigaysaa wixii markaa iyada jirhkayga soo gaara dembi ma qabta iyadu
innagana maanta gabdhaheenna qaarkood ayagoo maankoogii caqligoogii uu soo jeedo uu shaqaynayo ayaa laga yaabaa dhar xun intay xidhatay inay ragga hormartay bannaanka marto, ama aabbihii baad arkaysaa inantiisa kala raalliya dhar xun inay xidhato, isaguna masjidku kugula tukan hadduu doono safka hore, dhashiisiina dhinacay socdaan iyo haadkay marayaan warba uma hayaba, iyadoo miyirkeegii uu daboolmay oo suuxday oo jidka taallo marada ka baylahmaysa iyo aragga cawradeeda raggu ay arkayaan ayay ka baqaysaa ee ka xishoonaysaa. markaasay nebiga ku leedahay ii ducee yaa rasuul allah in maradu iga dhaqaaqin maradaydu bas. uu u duceeyey nebigu sal alla alay slam. meel kastay ku dhici jirtay maraduna kama qaadma jirin baa la yidhi. ibnu cabaas radia allaahu canhuma, ilaahay raalliha ka noqday cabdillaahi ibnu cabaase, waa khilaafadii cuhmaan binu cafaan buu cabdillaahi soo gaadhay isagoo indhabeeloo da-weynaaday, bal weliba uu ka dambeeyaan u malaynayaa, ayaa waxaa dhacday inuu taabiciinta ku yidhaahdo cataa ibnu abi rabaax oo ardaygiisa ahaa, haweeney ahluljanna ma ku tusaa? islaantaa madow halkaa duqdaa madow maad arkaysa? haa, waa ahluljanna. say jannada ku mutaystana uu sheegay markaas. marka adduunka dusheeda walaalayaal dhibaatada inagu soo gaadha waan u adkaysanaynaa, faqriga waan u adkaysanaynaa, nicmadda ilaahayna siiyana ilaahay baan ugu mahadinaynaa. mu'minku labadaa midun waa inuu ka dhexeeyaa bayna shaakirin wa saabirin. hadduu hani yahoo loo nicmeeyeyna waa inuu noqda qof shaakira. shaakirku waa maxay? waa qofka sida ilaahay rabo u noolaade u socdo weeyaan. hadduu faqiir noqdo faqri ilaahay kuu qadaraa ama imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay kugu rida oo qof baa kaa xanuunsan, adigii baa jirin, ilmihii baa wax kaasa noqdeen, waa la sabrayo waa la adkaystaa. mu'minku ma ashkato. haddaad aragto qof muslimo oo shahaadanaya oo balaayo isaga ku dhacda dadka mar walba uga sheekaynaya, waa qof ilaahay ka cabanaya baa lahi. wuxuu leeyahay nin ilaahay baa dhibtaa igu haya ayaa iga qabto, halkay ku dacweeyaan. mu'minku ma ashkatoodo. shakwada mu'minku ma leh. mu'minku sabirkuu leeyahay. hadduu qani yahayna waa shaakir. hadduu caafimaad la siiyey waa ku shugriyaa caafimaadka. haddii arsaaqada loo waasiciyo arsaaqada uu ku shugriyaa. haddii nolosha lagu yar cidhiidhiyo lagu adkeeyeyna waa la sabra. laanna nolosha adduunka ilaahay isagaa sidaa ugu talagalay dadku inay kala sarreeyaan. marka adiga dabaqadda ilaahay uu kugu dhex abuuray diinta uu ku dhex qaada bas, ilaahay uu ku raaligeliyay. madax buu kaa dhigay, madaxnimadaadu waa mas-uuliyad ilaahay ku saaray, ajarna waad ka helaysaayo haddaad dadaashado ummadda aad talada lagugu dhiibay, walow qoyskaagaba ha noqdo, tolkaaba ha noqdaan, degmaba ha laguu dhiibay ama tuulaba ha laguu dhiibay, haddaad cadaaladda ilaaliso cadaalad samaysid, wixii wanaagana aad ula dadaashid dadka, haddaad asiibtana 2 ajar baad leedahay, haddaad geftana 1 ajar baa lagu qorayaa baa lagu leeyahay. hanigii waa la mid, caaqilkii waa la mid, islaax daata bayn ajar intee leg baa ilaahay kugu siinaya. marka walaalayaal diinteenna macaan ma aha diin ku kooban maskiidka keliya, bal diin waa diinteen islaamku waa diin nolosheenna oo dhan la doonayo maaragtana inaan ku maarayno. taajirku tijaaradiisa markuu bilaabayo uu culammada intuu u tagu yidhaahdo qaabka islaamnimadu tijaaradda u dhigtay ii sheeg. bishii ramadaan baa soo dhowaatay ka soo qaad. intaan ramadaan uuna soo gelin ninka soonka lagu leeyahay waa inuu culammada u tagu yidhaahdo soonkii baa soo dhowaaday bal axkaamtiisa noo akhri. nin baa buka ka soo qaad inuu soomuuba karaynba, waxa laga raba waa inuu culammada sii weydiiyo. xashkaad u socota ad u xamaan qaadatay, cilm alxaal weeyaan cilmigaasi, waa inaad culammada weydiisaa. inantaadiibaa guur galaysood rabtaa inaad dhisto ood da-dii gabdhaha lagu guurinayay gaadhay, waa inaad culammada u timaado oo tiraahdo shareecadda islaamka guurka sidee u dhigtay bal ii sheeg. adigaa raba adaa nin dhallinyaro ama inaad guursataan rabtaa, islaamnimadu diinteennu islaamku guurka maxay ka qabtaa bal ii sheeg. qaabka loo guursanayo waa qaabkee? awlaadda sidee loo tarbiyadaynayaa? war imaamka masaajidkaad ku tukanayso salaada keliya kaga daya laguma leh. imaamkaagu muxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed marka uu ku leeyahay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, saadii aragteen anigoo u tukanaya u tukada markuu nebigu ku leeyahay, waxay ka dhigan tahay waa nolosha oo dhan
aniga kaga dayday buu nebigu yidhi noloshoo dhan. markaa nebigeena ha ku dayano oo ubadkeena diinta ha barno, innakuna diinta ha ka shaqayno. diintu shaqay rabtaa maanta, shaqo adduunyada maa laga shaqeeyaa mise waa iska timaadaa yaa sheekh ya iska timaadaa miya soo loo kalahaa aa laga shaqeeyaa. shaqadaa adduunyadu ay rabto shaqo ka badan bay diintu rabtaa iyo ogaada. weliba diinta haddaan xooggeena iyo caqligeenna iyo dhaqaalaheena iskugu geyno diin ka shaqayno, noloshan adduunka aynoo noqonaysaa janno. waa meesha soomaalidu ay tiraahdo waxa umusha u dana baa ilmaha u dana. islaantu markay dhasho odagu ilmaha cunto uma keeno, laakiin umusha ayuu nafaqeeyaa. oodkac buu u soo dhigi, subag buu u keeni, malab buu u keeni, timir buu u keeni, canuu u keeni, lacag yar buu siini. iyadu waayo wuxuu leeyahay hadday iyadu nafaqo leedahay, ilmuhuna hooyadii buu nafaqada ka qaadanayaa. waxa umusha u dana baa ilmahana u dana, waxa diinta u dana ayaa nolosheena adduunyadana u dana ogaada. hadday diintu inaga dayacanto nolosheennii baa dayacantay ogaada. marka caamadeenna iyo culummadeenna iyo dhallinyaradeenna iyo odayadeenna iyo ganacsatadeenna iyo madaxdeennaba diinta xil bay naga saaran inaan ka wada shaqayno, oon wakhtigeenna ku bixinno, oo ijtimaacyada ka qayb galno, oo habeenka jimcihii fikradiinka markas baytulmaal ka qayb gashaan, oo ijtimaacyada dacwaddana aada noo timaadaan. bisha Sebtembar 23 Sebtembar ijtimaacii Hargeysa dhici doona. January in awalkeegana ijtimaacii Djibouti baa dhici doona. wadanka dadkii iyo dalkiiba xaggaa buu inaga xigaaye, bal sidaan anaguna niigu imanayna marmar reer Nairobi inakoo masjida weliba hayaamahan masaajidadaan soo maraa. duhurkii masjid baan maray, casar masjid baan maray, maqrib masjid baan maray, subax masjid baan maray. hadalkaaba idhibay anigii baa iska daalanba. haddana bal insha allah ininkuna sidaas oo kale inaad noo timaadaan oo soo ziyaarataan bal isku daya insha allah dhahada. walow haddaad wada iman karin inaad masjid salaam oo kale, masaajidkeena masjid salaam baan u maray magaciisa, inaad jamaaco soo dirtaan oo tiradaan jamaacadaasi masjid salaam bay ka socotaan insha allah dhahada. allah inagu anfaco. hada wabillahi tawfiiq وصلى الله على سيدنا محمد. bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka, hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada, culumta shareecada islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. haddaba isqoristu waa ay socotaa. hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee Daarul Hijra.